السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaan waa Tayo Building Construction and Design. qofka idin la hadlayna waa aniga Axmed Xasan aan ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. muuqaalkan maanta waxaan ku eegi doonaa sida loo sameeyo ama loo design gareeyo musqusha. Okay, casharkan maanta waxaan ku sameyn doonaa insha Allah taala musqul. Okay, marka hore waxaan tegaynaa design, kadib waxaan tegaynaa wall. Okay, for example, height-ka wall-ka waxaan ka dhiganaa 3 meter. Okay, thickness-kiisana waxaan ka dhiganaa 0.20. Okay. حقنا waxaan ka dhigaynaa 2.5 for example ka dhigaynaa 2.5. okay xaqana 2 meter. okay 2 meter. okay xaqana 2.5 xaqana 2 meter isku xidh. okay intaas markaan sameeyno waxaan iska sameeynaa dana slab-kan iska saarnaa. okay thickness of slab waxaan ka dhigaynaa 0.3. okay de kadib rectangular nooga dhig. okay isku xidh marka. okay haddana waxaan iska sameysanaynaa albaabka. okay albaabkana kan inoogu daa waxaan ka dhigaynaa alwaax aan ka dhigaynaa steel 5. handle-kiisana for example handle 2. okay albaabkeena waan furaynaa bal si aan u aragno gudaha sababtoo ah gudahan wax ku dhex sameynaa soo ma meeshaas ay eber ku qoran tahay waxaan ka dhigaynaa 90 si uu albaabkeenu inoogu wada furnaado. okay waxaan rabnaa gudaha inaan aragno. okay xagganaan marka albaabkeena ku sameynaa xagga. okay dhinacana fur. okay oo kaas hadda waxaan sameysan. okay waxaad moodaa albaabku inuu islaabka kor u yeerkacsan yahay soo xagaas uma aragtid xagaaman eber ka dhiganaa dhiman. okaas okay ground floor-kan ku noqono waxaan tegaynaa object toilet baan ku qoranaynaa xagaas sirjida. okay for example kanaan dooranaynaa. okay sitting giisaan galaynaa xagaas ay ku qoran tahay open aad rabto close baad ka dhigi choice-kaada iska leh. okay for example open baan ku deynaa kadib waxaan ku noqonaa brief and positioning xagaana eber baan ka dhiganaa waa inta dhulka kor looga qaaday way. okay height-kiisa iyo thickness-kiisa for example intaas ba ku daa. okay waxaan dhigaynaa xagaasaan dhigaynaa. okay xagan baan arki. okay now xagan ba maaha. okay xagaa bay noo dhig kadib isaga select garee control D oo ah drag dib baan u durkinaa. okay aan soo eegnaba wakaas. okay color kale inuu yaa laga yaabaa object model baan tegaynaa color-kana ka xidhnaa arka. okay wakaas. okay wakaas. okay 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 haddaa rabto ood yar weyniin intaasaan ku daynaa marka intaasaan ku daynaa. okay waxaan ku noqonaynaa object. okay bal haddana waxaan search garaynaa shower. okay for example kan baan dooran. okay isagana xageen dhignaa xagaasaan dhiginaa. okay waan rotate garaynaa horta waan move rotate sababtoo waxaan rabnaa meesha ayre goobadaas yar inay geeskaa tagtaan rabnaa. goobadaas inay geeskaas tagto ayaan rabnaa. okay wakaas kadib waan soo drag garaynaa hadda waan soo drag garaynaa. okay control D geeskaasaan ku dhejinaa marka. okay okay waxaan sameynaynaa
si aan gudaha u aragno gidaarkan iska yareynaa horta edit baan tegaynaa grouping and group marka okay gidaarkan ayaan ka dhigaynaa 1 mitir gidaarkan aan 1 mitir ka dhigaynaa hadhow baan bedelnaa dhimale muhiimad aan 1 mitir uga dhigo xaytaa si aan u aragno gudaha okay ama waan iska dhil kareynaa aksi aan gudaha aragno hadhow ayaan gidaarka iska samaysanaa dhimale okay waa kaas hadda waxaan sameynay okay groundigan ku noqono kanaan select gareynaa object setting dhulka imsuga kaasina ever okay waan ku deynaa oo saxan yahay okay objective baan ku noqonaa maxaan kale kanaan saarnaa marka waa kii lagu meedhanayo isagana for example xaggan ku dhaji okay aan soo eegno marka sorry si khaldamaan dhignay waan rotate gareynaa right click move rotate kadib drag aan soo durkinaynaa okay waan sii jeedinay soo waan sii jeedinay move drag rotate laban sameynay kanaan iska delete gareynaa okay orbit markaas gidaarka unu ku dhejinay sooma dib male dib umana durkinaa select control D okay markaas waxaad moodaa inuuna muuqan sooma dib male colorka gidaarkeena maan bedelnaa marka gidaarkan colorkiisa ayaan bedelnaa colorka gidaarka ayaan bedelnaa model baan teginaa okay inside ma waa edge okay inside ayaa waxaan ka dhiganaa tiles light brown okay markaas hadda waxa uu muuqdaa sooma hadda uu muuqdaa kaas xagaas oo xagga biyo ka soo daadanayeen sidoo kale xaggan biyaha meesha ka soo daadanayeen xaggana waxa la dul dhigtaa saabuunta iyo waxas okay xaggan aan u yar durkinaa marka control D oo draga amaba drag taanu inta badan waxaan isticmaalaa control D adoo xaggeed ka tegi kartaa waad select gareyn horta ma select garaysi right click move drag marka taas way fog tahay markaasaa u select garaysato control D baad iska taaban waa shortcut okay xaggaas bay noo dhig okay again xaggaas bay noo dhig sooma kan naga delete garee okay wakaas saasaad waxda rabto usoo gashan okay maxay naga maqan oo soo gelinaa oo kale okay for example basin waa farxaladii kuwana yes kuwana waa farxaladii okay for example kanaan ka dhiganaaba xaggan ku dhejinaa xagganaan ku dhejinaa okay inoo select gare right click move rotate waan rotate gareynaa xaggan u jeedinayna sorry si khaldaman rotate gareynay
inaga qalacso marka aan celina rotate line waa inuu ku toosnaado marka aad rotate garanayso okay line kana waa inuu ku toosnaado okay wakaas farxalkiina okay maxaa ka dhiman okay maxaa ka dhiman toilet bal aan ku laba noqon okay toilet paper tan oo kale waxa weeyaan waa warqadii yarayd warqada laga yara saarta ayadana xaggan aan ku dhajinaynaa marka right click move rotate okay waan rotate gareynaa marka kadib drag hore baan yar durkina inta badan warqada yar waxba laga saartaa iyada tan xaggan ku dhajinay taas iyada warqada waxba laga saartaa okay maxaa naga dhiman marka aan ku darsanaa okay kuwan tan oo kale marka la soo kacayo ayaa la qabsadaa tanna waxaa la dul saartaa tusaalahaan shukumaanka oo kale ayaa la dul saartaa okay maxay naga dhiman okay tusaalahaan waxaan gelinaynaaba muraayad mirror okay muraayad baan gelinaa mirror setting magala yes tan rectangularka ayaa baan ka dhiganaa kadib previous positioning dhulka imsaan kor uga qaadnaa tusaalahaan 1 mitir iyo badh 1.5 baan kor dhulka uga qaadinaa okay xageen ku dhajinaa xaggan farxalka korkeedaan ku dhajinaa okay inaan select garee right click move rotate gareynaa marka okay waan rotate gareynaa okay iyaduna wataas muraayadiina okay waxoogaa waan yar ballaadhina waan yar ballaadhina okay haddaad rabto in yar baan hoos soo yardhigaynaa 1 mitir baan ku daynaa ama 1.2 okay xaggana usoo yar durkii ilaa xagga gaadhsii xaggana intaas farxalkan la ekaysiina marka okay wataas muraayadiina waan saarnay okay hadda maxaan sameynaa bal islaabkeenana colorkiisaan ka bedelna islaab topka maan ka bedelinaa tile 2020 tile 30 baan ka dhigna okay still waan ka yar bedelaynaa color kale oo qurux badan okay 3D sorry kan waa gidaarka weynba okay 3D okay kiisii horaan ku celina marka woodkan badan ku dayna okay woodkaas waan iskaga daynaa okay sidaasaa loo sameeyaa showerkan ama suuliga okay iminka haddii aan rabno inaan xaggan xidhno okay tusaalehaan waxaan ku dhufanaa calaamadaari ku qoran pick up kadib gidaarkan baa select garaysan okay xaggana waad ku xidhoon xaggana baad ka soo bilaabi
okay 3D waa kaas waa isku color soo aragti waa isku color xitaa okay albaabka maan hadda u sameynaa markii hore gidaarka waxaan iskaga qaadnay waxay ahayd si aan u aragno gudaha albaabkeena hadda noogu xidhmay 3D kaas okay albaabka maan hoos dhigana marka xagga 0.10 ka maan ka dhigana 0 enter kaas kadib orbit okay kaas sidaas ayaa loo sameeyaa musqusha kulley waxyaabo badan inay ka dhiman yihiin waa laga yaabaa okay wixii ka dhiman kulley waad ku darsan kartaa sidaan hadda objectiyadaas u soo gelinay unbaa iyagana loo soo geliyaa okay waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan hadday tahay markii ugu horreysay soo booqato channelkan fadlan subscribe saar sidoo kale muuqaalkan like saar siina share garee oo la wadaag wixii talo iyo tusaale aad noo haysana waxaad noogu reebi kartaa qaybta comments-ka sababtoo ah waxay noo tahay dhiirigelin aad iyo aad baad u mahadsantihiin